بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aynu la yeelanayno Sheekh Maxamed Macalin Abshir oo kamid ah culimada Soomaaliyeed gaar ahaan culimo shalay bayaan ka soo saartay filimka Arday oo qaybtiisii koowaad ay baahisay warbaahinta Bile Media Sheekh Maxamed oo ku soo dhawaanaya markaa ahlan wa sahlan wa marhaban bik dad badan ayaa ka falceliyay bayaankiini shalay oo siyaabo kala duwan uga falceliyay yaa idin soo abaabul horta sheekhay الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين علماء إن لا أبابلو ما بعنا أيها مر والبؤتاجن إني وناجنا أمران حمانتنا أي ريبان وأنا وحسو تشرين وح ما أنت بالله وأنا يمه حيا لدتك وجوه الرياح وفتنة يا حمانتا كدجة أو أركوي حلاش يا حرام تدتك وجوه دتك وي دتك الربوي يا بالشد إن عنده النقدان meesha xun markay ku socoto uga digaan culimadu marka hay-adana ma abaabulaan dawladana ma soo kiciyaan ayaga ayaa arka waajibna ay ku tahay sharciga ilaahay inay ilaaliyaan wanaaga ay amraan xumaantan ay reebaan taa hadii laga waayo culimada lacnad baa ku dhacaysa sidii reer bani Israa'iil ba ilaahay subhanahu wa ta'ala ila ugu lacnaday ala lisaani Daawud wa Ciisa ibn Maryam marka culimadu ayaga isxilqaamay oo arintan bayaankana diyaariyay uguna talagal bulshada ka wacyi galiyaan marka cid gadaal idin ka taagan oo idin soo abaabushay ma jirto maya way filimkan Arday ma daawata adigu sidee u daawata qaab sidee u daawata filimkan wuxuu lahaa hordhac intaan la soo dayn la baahinayay oo bulshada la istusahay goosgooskaas markaan aragnay culimaduna ay arkeen waxa ka soo baxday inuu yahay filim khatar ku ah diinta iyo dhaqanka suuban ee Soomaalidu muslimiintu ay leeyihiin gaar ahaan Soomaalida markii aan aragnay intaas waxaan u gudubnay inta aan la baahin ka hor inaan ka wacyi gelino walaalihii u taagnaa oo diyaariyay oo rabo inay baahiyaan waa la fariistay kulamo kala duwan khiyaar badan baa la fariisatay anu waxaan kamid ahaa kulamadaas mid kamid ah baan ka qayb galay waxaan tusaaleynay arintan dhibaatada ay leedahay wuxuu xambaarsan yahay waa intaan la baahin ka hor waxaanan aragna bulshada waxa weeyaan de kama wacyi geli kartid waxa uu aadan aragin wayna kama wacyi geli kartid marka waan aragnay waana bilowna intaan si gooni ayaga oo la kulano way marka maxay tahay waxyaabaha 1 iyo 2 iyo 3 aad dhihi karto ama dhibaato ah ama khaladaad ah ee filimkaas aad ku aragtay filimkan Arday wuxuu xambaarsan yahay ardayga Soomaaliya soo u nool yahay iyo sida uu waxbarashadiisu ay tahay wuxuu gudbinayaa fariin ballaaran oo dhaawac ku ah ardayga waalidiinta mucallimiinta dalka iyo dadka intaba wuxuu xambaarsan yahay barnaamij ah gaangis inuu ardaygu yahay oo uu yahay dilaa iskooladay wataan qaar ba isdilahaya wax xambaarsan yahay waa ka muuqata waa dhiiri gelinaya bal dhihi kara wuxuu xambaarsan yahay xishood darro kale oo ah akhlaaqiyaadkii oo la baabi'inayo oo ay tahay gabdho yar yar oo inta la kaxeeyo niman odayaal loo geynayo oo sigaar lagu dulshidanayo gacanta lala aadahayo gabadh ay xoogaa naxayso oo uu leeyahay intuu telefoon diro maxay tahay gabar yar oo aan diyaarsanayn baa soo go'day qof aan diyaarsanayn baa ay keenteen waxa la dhiiri gelinayaa fuxshiga xumaantii marka goosgooskaad ku aragteen ha wuxuu dhiiri gelinayaa oo kale ku jirtaa oo la dirirahayaa labiskii wanaagsanaa ee xijaabka ahaa iskuulada Soomaaliya lagu dhiganahayay waliba ardada matalahaya filimkan gabdhaha ah shaati bay wataan iskuulka ku dhiganahayaan iyo goono Soomaaliya wax ka jira ma taas wax ka jira ma asturnaalaana ka muuqata asturnaal ka muuqata waxa ka muuqata labis aan ba jirin oo dalkiiba aan ka jirin oo aan wax isticmaalaba jirin ayuu waxa weeyaan uu faafinaya baarinaya waxa ka muuqata been abuur wuxuu soo qaadanaya gabar yar oo waxa weeyaan hooyo waalidkeed cunno u keenayso oo oranaysa cunnada aan u marraba ku caasinaysa wuxuu dhiiri gelinayaa xuquuqnimada waalidka la caasiya ah waxa ka muuqata oo kale waxa weeyaan in ikhtilaat gabdhihii iyo wiilashii inta hal meel iskugu keeno oo isku darmaan meelaha qaarkood ay waxa weeyaan isla heesahayaan oo heestii ay u furan tahay oo qaarkood isruuxahayaan ayaa ka muuqata waxaas marka la isku daro haday tahay heesii
hadday tahay wax weeye daroogadii, hadday tahay dilkii ka muuqday, hadday tahay anshaxumo kale oo hadallada xaggeeda ku saabsan, kulligood mid kaste bidaatiha sida ay u taagan tahay bay u tahay shay xun oo xaaraam ah. wax ardadeenna iyo mujtamaceenna iyo madaarista Soomaaliya ka jirana ma ahan. waa dhici kartaa afraad ma diidayna marnaba, culummadu marnaba ma diidahayaan iskuullada ardada dhigta qaar ka mid ah in laga yaabo inay taambu iyo xashiish isticmaalaan, in laga yaabo dhaqan xumo inay jirto, laakiin maxay ka dhan yihiin mujtamacii iskuullada dhiganaya kumanaanka ahaa malaayiinta ahaa maxay ka yihiin aqaliya dadkaas ah. marka haddii intaas keli ah si gooni ah looga hadli lahaa oo dadka wanaagooda kale la muujin lahaa, waxaa la dhihi lahaa waxbaa la saxaya. way laakiin dabcan filimku hadda waa bilow. Sheekh Maxamed sida ay noo sheegeen mas'uuliyiinta Bila TV waxa uu filimkan ka hadlayaa dhacdooyin dhacay iyo kuwa dhici kara, talooyin iyo wax wanaagsan ayaana ku jira. miyaan oran karnaa waa degdegteen oo waxay ahayd inaad tugtaan inta uu ka dhammaanayo? maya, waxaa weeyaan shayga munkarka ah, fitnada iyo munkarka markay ay soo baxaan, fitnadu daama la qabtay leedahay maaha daba la qabta male. Soomaaliya marka la yidhaahdo suuro xun ayaa ardadeeda laga gudbinaya. markii laga gudbiyo suuradan xunna waxaa ceebaysani ma ahan keliya ardada, waalidiintii dhalay, macallimiintii waxbarahayay, dowladdii ay maamulka u ahayd, wasaaraddoodii waxbarashada, kulligood waxay tusinaysaa iskuulladoodu inay yihiin iskuulle aan lagu kalsoonaan karin. waxa ka jiraana ay tahay dil iyo akhlaaq xumo iyo anshax xumo ay tahay. culummadu ma ayna degdegin, wixii indhahooda ay saareen oo ay arkeen intii aan la baahin ayay si hoose waxay damceen inay uga digaan oo uga naseexayaan. marka inta aan ka aragnay ayaaba shar iyo balaayo ku filan. ma fahantay? annagu waxaa ka dambeeya inay dee tusaale tan u tahay bay daliil u tahay. ilaa wixii ugu horreeyey oo filimkan ka koobnaa waa la soo daayay wax ka mid ah. intaasaaba waxay tahayba dembi weyn oo jariime ah oo ardayga Soomaaliya laga galayo. midda kale waxa imaan doona gabar yar oo loo geynahayo nin odayaho shayb ah oo sigaar ku dul shidanahayo in la yiraahdo waa wax iskuulada ka jira. mase waxa laga wada waa imaan doontaa oo wax imaan doona laga wada. haddii wax la saxahayo waxa wax lagu saxaa dadka ay qusayso in la wadaago. haddii ardayga Soomaaliyeed qaldan yahay waxa lagu sixi karaa waalidkii, waxa lagu sixi karaa bahdii waxbarashada, waxa lagu sixi karaa wasaaraddoodii, waxa lagu sixi karaa asagii bidaat baa lagu sixi karaa. cidda aan rabno inaan wax saxdo ma ahan waxa weeyaan intaan baahino ceebta Soomaali iyo ardaydeeda dibadaha gaarsiino inaan ka sugno in dadku ay hay'adaha adduunka iyo ummado kale ay yiraahdaan dalkan waxbaa ka burbursanay ha laga saxmaa. waa in anagu isa saxnaa. ma hubiseen dhacdooyinka filimkan uu sheegay inay dhab yihiin oo ay ku jiraan iskuulaadka in kale intaydaan go'aankan qaadanin? waxaa xaqiiqo ah oo qof kaste oo Soomaaliya uu og yahay iskuul kaste ee Soomaaliya ku yaala ardadiisu inaysan kulligood wada xumayn. waa mutafaq dad kama taagna. bal ardada xun waxa laga yaabaa inay 1 iyo 2 iyo 3 ay tahay. hadaa madrasa iskuul tagtid oo ku aragtay 200 oo arday inay dhiganayso oo 10 ka mid ah ay xun tahay oo xashiishka cabaan oo darogada isticmaalaan oo ay liitaan, 10 ka filimka quseeya iyo waxa xun oo uga digaysid ma waxa leedahay iskuulkan iyo ardadiisu kulli waxa weeya waa gaangis, waa mooryaan, waa dilaa, waa noocaas miyaa leedahay? cadaalad ma u fiirso. waxaana waxa laga fiiriyaa naadir xugun ma leh, laakiin waa hubnaa iskuulladeena ilmaheena iyo ardadeena iyo dadkeena baa dhigta. bal dadka faafinaya oo arrinta u taagan wayse is ogeyn maahane ilmihii ayagu ay dhaleen ayay waxay ka gudbinahayaan inay gaangis yihiin oo xashiishka isticmaalaan. maxaa yeelay ayagu kuway dhaleen baa iskuullada wax ka dhigta oo dalkii ardadii ka mid ah, kuwii walaalihiis ay dhaleen baa dalkii jooga ka dhigta. marka waa weeye ilmihiisii buu ka gudbinahayaa. caawa haddii la yahay ilmahaagu waxa daroogay cunaana xataa hadday cunaan wuxuu isku dayahay inuu qariyo. waay Sheekh Maxamed, dhacdooyinka aad filimka sheegtay kuwa ka daran inay ka jiraan magaalada Muqdisho ma ogta mise ma ogid? boqolaal kale oo filimkan inta uu xambaarsan yahay ka mid ah waa ka jira. laakiin waan arag markaan aragna wax u daliil ah culummadu waxay ka hadleen daroogooyinka iyo baararka khamaarka iyo waxay ka hadleen dilalka iyo waxay ka hadleen akhlaaq xumada magaalada ku soo kordhaysa iyo anshax xumada. intaas oo muxaadaro oo mukhadiraad leh oo akhlaaq xumada leh
oo dhaqan xumada leh ayaan khudabka jumcada weliba si caam ah ayagoo duuban oo maqal iyo muuqaal ah bay meel walba yaallaan weliba culummadu waxay isku xilqaameen marar fara badan in ay si ay uga hortagaan khudbooyinka badan ay ku soo qaataan daroogada dhibaatada ay leedahay sida aan warbaahintu soo hor istaagteen oo aad filimka arda uga hadasheen waa duuban tahay waxaa duuban ayagoo maqal iyo muuqaala oo baraha bulshada meel walba yaalla baa culummadu waxay kaga hadleen oo ka wacyigeliyeen bulshada kuwa musalsalaha jira oo mataqaana muxaadaraad kooban oo aan uga hadalnay noocyadaas mana aha shalay mana aha sanadkan mana aha sanadkii hore sanadkii intaas oo jeer ayaan ka hadalnaa dhibaatada jirta waxaa ka mid oo arkaysay oo culummadu ka hadleen oo hor istaagay oo bayaan ka soo saareen xeerkii jinsiga la oranahayay oo sidii la ogaa wadanka loogu dhibahayay ayaa culummadu meel walba u istaageen in ay ka hortagaan kuwaas iyo kuwa ka daranbaba waxay culummadu u taagan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u fududeeyo inay bulshada ka wacyigeliyaan waana waajib diiniya masaajidka aad khadiibka ka tahay dhismooyin aan ka fogeyn ayaa la sheegaa in dhacdooyinka aad sheegaysa ee mararka qaar akhlaaqda aan ku wanaagsanayn iyo waxyaabaha maanka dooniya lagu isticmaalo haddii beydka ilaahay aad khadiibka ka ahayd goobihii ku dhowaa wixii ka jiray aad wax ka qaban weysa sooma dhihi karno in aad inta tilaabo dheer soo qaadaan oo aad bayaan noocaana soo saartaan tuhunka dadku idinka qabaan qaar waa dhab masjidka anuu khadiibka ka ahay mas-uuliyaddiisa anaa haya wixii ka jirana anaa wax laga weydiinaya soo maha meesha u dhow iyo meesha ka fog intaba oo isla magaaladii ama isla xaafadii ama isla degmadii ah munkarka ka jira iyo xumaanta lagu samaynayo waajibka diiniga ee culummada saaran oo aniga isaaran oo hebel saaran wax weeye inaan ka wacyigeliyo oo aan ka hadlo ma jiraa horta in munkar lagu sameeyo masjidkaaga khadiibka ka tahay dhismooyin ku dhow dowlad iyo xugun iyo awood iyo ciidan soo xirahaya awooddaas anagu ma lihin waxaan leenahay inaan nirna war ilaahay ka baqa war waxaan waa lagu halaagsamaya war waxaan waa aakhira la'aan ayaan leenahay si khaasa iyo si caam ahba ma fahamtay bulshada waa ka wacyigelinaya kan filmkan oo sidaad uga sheegteen oo kale waa intaas haddaan ku weydiiyey ma uga sheegtay intaas oo jeer baa waxaan u tagnay kuwa naloo sheegay hoteelo iyo fanaadiq in ay laftigoodu waxyaalo aan munaasib ahayn oo sharciga aan ku fiicnayn oo caafimaadka u fiicnayn oo bulshada aan u fiicnayn ay isticmaalayaan baa inta u tagnay oo la fariisanay baan ka wacyigelinay oo kala hadalnay qaar ka midii waaba joojiyey laakiin meeshiina la kugu sheego munkar waajib diiniya waxaa nagu ah inta aan awoodno inaan la xiriirno mararka qaarkood qof baa waxaa la hadlaysaa is leedahay qofkan qof hebel hadduu la hadlo waxbuu ka bedeli karaa waxaa dhacda inaan xataa hebel intaan la hadalno aan idhahno war qofkaa ninkaa walaalka ah ama aad xiriirka leedihiin waxaa iyo waxaa baa la sheegahayaa ma fahamtay annaguna waxba kama ogin walaalow uga naseexee ma fahamtay waajib diiniya wey waayo annaga waxaan rabnaa inaan badbaadno ummadduna ay badbaado culummadu way badan yihiin mana jirin go-aan midaysan oo culimmada oo dhan ay u dhan yihiin oo ay la soo saaray soo warkiinu qabiil noqon maayo culummadan ku sheegayo looma dhan badhihi karnaa culummadu markii wax yimaadaan culummadu isku meel ma wada fadhiyaan isku khadna kuma wada jiraan isku aragtina isla markaas shaygu markuu yimaado waxaa laga yaabaa mid inuusan aragbaba uusan ogeynbaba midna markiiba munkarka uu ogaado intii marka habba isheli karta ayay waajib ku tahay oo isla jaan qaadi karto isfahmi karta inay ummadda ka wacyigeliyaan tusaale waxaa wacaysa isu aan ku dhameeyo culamo badan muqdisho joogta boqolaal bay gaarayaan kubanaan bay gaarayaan qaar safaray ku maqan yihiin qaar dana kale ku jiraan qaar waa mashquul qaar telefoon ma qaban qaar xaggay ahaayeen bulshada marka waxaa waajib ah in la helo jamac ka mida culummadii intay doonaan ba hala ekaade oo fardu kifaayada ka rida oo ka wacyigeliya bulshada ayib waxaa kaloo jirtaa culummadu munkarkan isaga hadda aan ka hadlayno culummo intay soo fadhiistaan odhanahaya waxaan iyo nuucaan ardayga soomaaliyeed baa sida tan ah oo run baa la sheegay yah ma aanan arag culummo la yaqaano oo waddanka laga yaqaano caana way dhogan yihiin haddii la waraysto ayagoo aan culummada kale laba hadlinbaba baa cilmiyan iyo aqoonta ay leeyihiin iyo taqwada ilaahay ku xambaaraysa inay yidhahdeen waxa sax ma marka waxaani ma ahan wax mataqaanaa culum caalim hebelna uu ogol yahay caalim hebelna uu diida ma ahane waa wax culummadu aysan ogolayn intii u hadashaana culummada matasha mar walba
oo waxa weeyaan u istaagta forax culumma u istaagtay wixii jinsiga qurunka culumma u istaagtay dhibaata markay timaado culumada qayb baa kacdo istaagta kuwa kale kuwaas unba u hadlay haddaynan ayaga xaggooda ka imaanin fatwo kale iyo wax kale mucaarada macnaheedu waxaa la dhihi karaa culumada Soomaaliyeed uma kala maqna shaygan inuu munkar yahay maanta marka waxaan dhihi karnaa Sheekh Maxamed Macalin Abshir iyo koox saaxiibadii oo culimo ah ayuu go'aankan u gaar yahay Soomaa maya qaar ka mid ah culumada Soomaaliyeed ee Muqdisho baabayaan soo saaray Soomaa haide waxay matalayaan oo culumada Soomaaliyeed ku matalahayaan shaygii la isla yaqaan uma baahnayn waxay u baahnayn shaygu markuu munkar yahay oo la isku waafaqsan yahay caalim kasta meesha uu joogo wuxuu jecel yahay caalim hebel inuu ka hadlo u istaago way Sheekh Maxamed dambiyada waaweyn waxa kamid ah in dhiigga qof muslim ah oo aan waxba galabsan la daadiyo waxaan ognahay in dilalku ay Muqdisho ka dhacaan ama shabaab ha geystaan ama ciidamada dawladda maxaa loo waayay inaad meel fagaara soo istaagtaan oo ka hadashaan dhibaatadaasi culimadu meel walba ay joogaan dambi kaste oo la galo waxa ugu weyn dambi la galo al-ishraaku billah ilaahi wala wax la wadaajiyo waxa ku xiga qatlu nafsi bighayri haqq naf oo la dilo xaq la'aan lagu dilo waxa ku xiga az-zina saddexdooda ilaahi subhanahu wa ta'ala aayad ku sheegay waana waajib in alla intii culimadu ay ka gaaraan inkiraan culimadu waxay ka hadlin karaan wax kaste oo munkar ah mid weyn iyo mid yar culimadu waxay u taagan yihiin inay inkiraan ama ha jooga mashriq ama ha jooga maghrib ama ha jooga meel kaste dilka waxa la yiraahdo dil kaste oo waxa weeyaan qofka muslimka ah xaq darro lagu dilaa adduunyadana cuquba ayuu ku leeyahay ilaahay agtiisana waa jarimo weyn markastana dilalka dhacaya waxa weeyaan waajib diini yahay tahay in laga digo oo xaq darro lagu dilo qof muslima taasi marka waxay keenaysaa culimadu meel kasto ay joogaan uma kala saarna shaygan maadaama munkar uu yahay maantay oo la joogo iyo bari oo la joogo mid kasta iyo mowqifkiisa iyo munaasabtii u ah waajib bay ku tahay inay ka wacyigeliyaan bulshada nooc kasta munkarku uu yahay waxa ku soo haray kilibka hadda ka hadlay oo mawduucan ku jirno dilal baa ku jira dil baa ku jira waxa ku jira fiiri dhacdooyin dhacay anagu ma hayno cidda haysa cadaynteeda haysa ilmaha yarka oo biskoolaha dadka ku laynahaya oo la tababarahayo waa hadda iyo dil cusub oo ilmaha yarka iskuulka arday lagu tababarahayo inuu dadka laayo oo saa intuu biskoolada u qaado u yiraahdo biskooladan amaalkeedu waa in lagu dhifto ardagii kale ku leeyahay ma fahamtay ilmo aan ku dhameeyo oo biskoolada wato inay dadka magaalada ku dilaan ku dhameeyo arday barnaamijku arday weeye ciyaalka ciyaal weerar la yiraahdo iyo kuwa tuugada ah oo biskooladaha wata maaha wax filimka laga matalaya waxa laga matalaya ardayga iskuulkaaga dhiganaya wiilkaaga yarka aha ayaa waxa laga dhigahaya inuu dilaayahay ayaa laga dhigahaya dilka laftigiisa aan inkeenay tani ka mid tahay oo xaraamta oo aan la ogolayn waxa ku soo haray filimkan isaga ah oo hadda ay culimadu ka dhawaaqayaan dil buu xambaarsan yahay wuxuu xambaarsan yahay akhlaaq xumatii ugu dambeysay wuxuu xambaarsan yahay dumin la duminahayo qiyamkii iyo jiritaankii ummadan Soomaaliyeed wuxuu xambaarsan yahay adduunkii oo loo sheegayo Soomaaliya ardadeedu inay intii la soo burburkii ay tahay wax aan la fiirsan karin ee laga soo gaaray inay tahay waya isla arinta su'aashii hadda u dambeysay ayaan si dabagaliyaa dilalka la xiriirta markaan ku celinayaa dilalku laba dhinac way ka dhacaan ama shabaab ha geystaan ama ciidanka dawladda ha geystaan inta culimadiina sida hadda aad isku soo urursateen oo kale aad u ballanteen oo aad warbaahinta soo istaagteen ma tiraahdeen carabkana ma ku dhufateen dhinacyada dilalka geysanaya oo ma la hadasheen mana sheegteen culayska ay leeyihiin anagu waxaan cambaaraynaynaa bulshadana la wadaagaynaa qof kastana leena dil kaste qof kasta ha geysto magac kasta ha ku geysto bighayri xaqin ah ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa maalinta qiyaamaha meeshuu ka geli lahaa hadda yaarsan aan ku dhameeyo dil kaste oo waddanka ka dhaca oo Soomaaliya ka dhaca noocu doona ha ahaado qof kasta ha geysto oo bighayri xaqin ah
waajib bay ku tahay culummadu inay ka digaan ilaahay dartii uga digaan bulshada ka wacyigeliyaan waajib diini waay dadku waxay leeyihiin culammada guryahooda ayay telefishinada ku jiraan waxaana suuragal in caruurtooda daawadaan ama iyagoo mararka qaar ay daawadaan telefishin ku jiraa gurigaaga maya asliyan weligii ma soo dhigan mana filahayo culummada aan bayaan ka soo saarnay nin ka mid a telefishin gurigiisa inuu yaalo marka marnaba telefishinna gurigooda ma yaalaan culummada aniga culummada guryahooda ma tegin laakiin waxaan ka hadlaya aniga culummadeenna waa ka dignaa wax kasta oo la fiirsado oo xun aniga marka i weydiisa shakhsiyan gurigayga telefishin horeyna uma dhigan haddana laga heli mahayo alxamdulilah saaxiibada bayaan kula soo saaray ma filahayo in laga helayo ma filahayo ma filahayo waay baaraka allah dhawaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho dhacdo uu sameeyey oo dadku siyaabo kala duwan uga fal celiyeen waad la socotaa oo la xiriirtay arrintii ulaynta goobo la sheegay in waxyaaba aan akhlaaq ahaan wanaagsaneyn ama maandooriya lagu iibiyo oo uu tegey falka ama tillaabadaas seed u aragtaan culimadiinu gaar ahaan adiga sheekh maxamed shayga munkarka ah qof waxaa laga rabaa inuu ku suuliyo lisaankiisa iyo carabkiisa qof waxaa laga rabaa gacantiisa qof qalbiga ayuu ka kahanaya waana maraatibta inkaarul munkarka nebigu sheegay alayhi salatu wasalaam man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi gacantiisa ku suuliyo qofku suldada uu leeyahay iyo meesha uu mas-uulka ka yahay ilaahay maanta qiyaama waxuu ka weydiinaya adiga gurigaaga haddii munkarka jiro suldadiisa iyo madaxdiisa cid kaaga saraysa aan la arag munkarka inaad suulisaa waa waajib diiniya oo ku saaran ninka xukuma hotel munkarka lagu samaynaya waajib bay ka tahay inuu ka suuliyo ninka degmo xukuma ninka gobol xukuma ninka ummad xukuma waajib waxaa ku ah inta uu awoodo suldadiisuna ay gaarto munkarka la samaynayo inuu meesha ka qabto ka suuliyo waa waajib diiniya mas-uuliyad saaran marka waa taageersantiin muddadaas qof kaste oo waajibka diiniga oofinahaya oo munkarkana zuulinahaya aan ku zuulinahayn munkar kale inuu ka weyn ka dhasho ee ku zuulinahaya asagoo awoodda uu ilaahay uu siiye isticmaalaya munkarkii baabi'inahaya waa waajib diiniya waana in la taageera sidaa marka uu sameeyey gudoomiyaha gobolka ma tahay sidii shareecadu ay qabtay gudoomiyaha gobolka hadda waxaan aragnay ul yar oo jeedal jeedal hadday xataa ay waxa weeyaan uu intuu qoorta qabto banaanka u saari lahaa ama uu gaari shaqla soo qaadan lahaa ku gori lahaa ama uu karbaash yar ku dhifan lahaa wax ka weyn ayuu xaq u leeyahay oo la rabo inuu munkarka ku suuliyaba haddaan ugu baaqayna waxaan leenahay munkarka fanaadiqda iyo hoteelada iyo xashiishka iyo daroogada dadka aafeeyey yaa war waajib bay kugu tahay gobolka banaadir marka la yahay gobolka banaadir waajib bay kugu tahay inaad wax ka qabato wax ka qabo filimkii waa sii socdaa oo warbaahinta bile dabcan way sii wadaanoo talooyinkiinniina ma aanay qaadan sida muuqata ma inta ayaad uga haraysaan mase tillaabooyinka loo dheeraada qaadaysaan annaga culummada ah waajibkeennu waxa weeye bulshada inaan uga digno ilaahay dartiis ciddii ay qusaysana aan u naseexayn oo aan niraahno war ilaahay ka baqa war doon baan saarannahay war haddaan ilaahay caasinno dhulkiisii baan taagannahay war yaa ilaahay dhulkana la goyn war macaasida waana halaagaysaa war waxaan caaqibo xumo weeye war dalkeena iyo diinteenna midna anfici mayso waa waajib annagana saaran annaga waxaana quseeya nusxiga inaan wadno oo aanan joojin waxaa kuu soo haray ummaddu siyaabo kala duwan ayay kaaga hadlaysaa annaga markii horeanba waxaan ognahay qofku markuu isku dayo inuu muslix noqdo oo uu hagaajiyo dadka qaarna waa mucaaradayaan qaarna waa ayidahayaan qaar waa mucaaradayaan dacaayad bay ka faafinahayaan waa aflagaadaynayaan annaga culummada waajib waxaa nugu ah wixii dacaayad ah iyo cayna inay sabar iyo dulqaad ay noo kordhiso maxaa yeele ajar baan ku kasbanaynaa nusxigana aanan joojin ee aan la wadaagno walaalaheen iyo cid kaste oo waxa weeyaan munkar ku sugan waxaa ummadda ka daayay marka bayaankiina intaas ma dhaafaysan adinka waxaa jira aflaan badan oo warbaahintu sii daayeen sida musalsalaadka iyo wixii lamid ah iyagu waan ka hadalnay hadda kahor baan ka hadalnay dhowr khudbaan oga hadlay muxaadaraad baan oga hadlay dadka fiirsanahaya oo aflaanta khaliicada fiirsanahaya inay waxa weeyaan bahalka la yidhaha ilaahay uga baqaa waxa kuu soo hartay farqiga u dhexeeya iyadoo taasi aflaan xum ah oo munkar ah guri baa nin qof gelahaya gurigiisu ka dhex daawanaya ama mobilkiisu ka fiirsanahaya tani waxay xambaarsan tahay ardaygii adiga gurigaaga joogay ee Soomaaliyeed oo dhan
ayaa maanta lagu soo duulay oo la dhaawacaya marka musalsalaadka waa ka culus yahay miyaad leedahay filimkaani wuxuu beegsaday ma og tahay ummaddii mujtamaca soomaaliya qaybtii uguba badnayd oo la dhihi kara ilmihii ah ayuu duulaan ku qaaday filimkaan laakiin kii kale wuxuu ahaa filim adigu intaa gurigaagii mobilkaa soo qaatay aad fiirsanaysid labaduba munkar weeye midka aan ka digayno maanta aan u taagannahay arday ah si gooniyaan oga digaynaa oo oga digaynaa kan kale iyo nooc kasta uu yahay waxaan leenahay qofka muslimka indhihiisana waa la weydiinaya aakhiro dhegihiisa wuxuu ku dhegaysanaya waa la weydiinayaa ilaahay oga baqa subxaanahu wa tacaala hana fiirsan musalsalaadka iyo filimada aflaamta kale ee la daayo filimkan arday waa ka dhibaatay culays badan yahay qabtaa filimkan arday maanta la joogo bulshada uu hadafka ka dhigtay oo mujtamac dhan oo ardaday ah oo weliba macallimiintoodina ay kula jiraan waalidiintiina ay soo gelayaan dalkiina uu soo gelayo asagaa ka khatar badan kana baahsan kana sii xamsan cid aad tuhmaysaan ama aad ku eedeynaysaan inay arrintaa ka dambayso oo maskaxda tahay ma jiraan annagu waxaan tuhmaynaa dadaan ilaahay ka baqin oo dalka aan u naxahayn inay fariin xun ay gudbinayaan oo ay isticmaalayaan siyaabo kala duwan waayo qof muslim ah oo iimaan leh oo damiir leh oo dalkay dadka u daqnanaya yaa waxbuu la hari lahaa marka warbaahinta waxaan isleenahay wax ka weynaa jira miyaad qabtaan annagu waxaan qabnaa gaaladu waxaan way rabtaa wayna ku farxaysa cadaab badan baa ku farxaysa oo rabta oo danaynaysa annagu waxaan qabnaa oo ugu leenahay cid kasta oo ku farxaysa oo weynaynaysa oo buunbuuninaysa waa cid dan guud ka leh inay dalkan iyo dadkan inay akhlaaqda ka baaba'aan marka cid aad carab dhabaysaan ma jirto oo aad ogtiin waay dawladda ma la wadaagteen fariintiin maadaama dalku dawladda bahda waxbarashada oo cabashadeedu ugu horreeyey oo naga horreysay baa fariimo qortay la wadaagtay wasaaradaha kala duwan maamulka gobolka banaadir wasaaradda waxbarashada warfaafinta kulli way la wadaagtay annaguna waxa weeyaan bayaankeennu wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta bahda waxbarashada la wadaagtay kulligood waa la wadaag kelmadaada ugu dambaysaa maxay tahay sheekh maxamed kelmadda ugu dambaysaa waxa weeye culummada mid baan leeyahay waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waajib buu idin saar inaad ummadda wixii munkara uga digtaan qof kastana awooddiisa istidaacadiisa waajibkaas ha u istaago dadweynaha bulshada ah ee social mediaha ku xiranna mid baan leeyahay waxa aad dhegaysanaysaan oo aad daawanaysaan u bandhiga diinta ilaahay ka ilaashada dhegihiinna iyo indhihiinna waxaan ilaahay subxaana wa tacaala raalli ka ahayn bahda saxaafadda waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada ummaddan oga baqa waxa aad baahinaysaan aakhiradiinana ilaashada kasabka aad ka qaadanaysaan haddii waxun ay yahay xaaraan buu noqonaya ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala wax ummadda horumarkeeda ah oo ka shaqaynahaya faafiya oo baahiya dowladda waxaan leeyahay waajib baa ilaahay idin saar nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam maa min cabdin yastarciihi illaahu raciyatan yamuutu yowma yamuutu wahuwa gaashun liraciyatihi ilaa xarama allahu calayhi اljanna ummaddii aad u dhaarateen oo mas-uuliyadda u hayseen horumarkooda waxa aan ahayn ee ka hor imaanayo didka ku ah ilaahay intaa uga baqdaan aakhiro waa laydin weydiinayaade ka ilaaliya oo ka wardiiyey ilahay subxaana wa tacaala hanoo barakay aad buu mahadsan yahay sheekh maxamed macalin abshir oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayuu kaasi ahaa oo aan waraysi kula yeelanay stuudiyaha universal ee magaalada muqdisho sheekhu wuxuu qayb ka ahaa culimo bayaan ka soo saartay filimka arday sheekh maxamed aad baad umahadsantay baarak allah jazaak allah khayr